dhammaan aad baa idin salaamaya. Assalaamu calaykum. mahad waxaa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyey meeshan. safar dheer baan soo galnay alxamdulilah. magaaladeennii Baraawe waa nimid. mahadna ilaahay ayaa iskale. waxaan uga mahad celinayaa dhallinyarada iyo ururka haweenka oo iga codsaday inaan safarkaygii dib u dhigo si aan ula kulmo, waana ka aqbalay. aad bayna ugu mahadsan yihiin. marka insha allah shirkan ma ahan shir xaflad weyn ah, laakiin waa shir iswaraysi aan rabno inay ogaato beesha qurba joogta u maqan Baraawe dhinac walbay joogaan, ama Yurub ha joogeen ama Mareykan ama Canada, in maaragtay ay noqdaan dad ka warqaba xaaladda guud ee dhallinyarada iyo haweenka magaalada Baraawe. run ahaantii haddaa og tihiin adinka ayaa laydinku xisaabtamaya, dhalinyaro iyo dumarka sidaa og tihiin. magaalo walbo ama dhul walbo aad og tihiin Soomaaliya maanta ka dhisan waxaa u kacay dumar ayaa u istaagay oo xataa dahabkoodii gaday. inkastoo qaarkood ay isku dayeen inay wax walba qabtaan, meeshii ugu dambeysay ay qaban kareen ayay qabteen. kuwa qurbaha joogana inta badan dadaalo fara badan ayay sameeyaan. waxaa lagu xantaa dumarka inay yihiin dad ka baxsan siyaasadda iyo qableysiga qabyaaladda, taas way ka baxsan yihiin. waa xan wanaagsan, kolley xan xun maahan. marka taasna wax fiican waa idinku bogaadinayaa. maasha allah, allah idin barakeeyo. qabyaaladda iyo qurunka inaad iskaga baxdaan oo horumarka iyo dib u dhiska magaaladan qaraamiga ah, qadiimiga ah ee lagu magacaabo Baladul Amiin ee sharafta leh aad wada degan tihiin oo aad jeceshihiin inaad dib u dhisataan. aad baa u mahadsan tihiin. marka run ahaantii magaaladan adduunkao dhan laga jecel yahay, adduunkao dhan ayaa laga jecel yahay. xataa gaaladii ayaa baratay caddaanka ahaa magaaladan, maxaa yeelay waa magaalo xeeb leh. waa magaalo maanta haddii ay nabad ahaan lahayd, ay dhisnaan lahayd, ka darnaan lahayd magaalooyinka sida Dubai oo kale, loo soo dalxiis tegi lahaa. laakiin maanta inay saa u dhismato, odayaasha ha ka sugina, odayaasha ha ka sugina. magaalada inay Dubai oo kale noqoto. Dubai haddaa og tihiin taariikhda 1993gii ilaa 97kii waxba ma ahayn. haddaa og tihiin Soomaaliya waagii nabad ahayd, Dubai waxay ahayd wadamada ka suga sadaqada Soomaaliya. Soomaaliya ayaa caawin jirtay khaliijka iyo ardul Xijaaz. laakiin maanta saad og tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaaliya wa tilka alayaamu nudaawilu bayna annaas ayuu ilaahay ku riday, oo maanta waxay haysteen ilaahay uu ka qaaday. waxaa laga qaaday nicmadii markii ay ku shukrin waayeen. ilaahay wuxuu ku saliday cabsi iyo gaajo. Soomaaliyana saa ogtihiin maanta labadaas cudur ayaa haysto, cabsi iyo gaajo. marka cabsida iyo gaajada waxaa looga baxaa taariikhda. haddaad dib ugu noqotiin, Soomaaliya waxaa la sheegaa dadkii SYL ugu horeeyey oo ugu xadaarad badnaa, ugu reer magaalsanaa, ee ugu firfircoonaa, ee madaxweynahoodana noqday inay ahaayeen dadka dhulkan ka soo jeeda. haddaad og tihiin taasna waxaa laydinka rabaa. dhallinyaradeedii maanta way fadhisaa. raggii shalay taariikhdaas dhigay maanta inay haddana magaaladan ka soo baxaan ayaa la iska rabaa. taasna waxaa samayn karo dhallinyaro. haddii aadan taas samaynin maanta, oday ayaa madaxa idinka qabsanaayo. sida ayaga ay u burbureen, ayaga isku haystaan, oo 10 nabadoon iyo 10 maaragtay hebelo loo leeyahay magaalada wada fadhiya, ayaa adinkana saasaa noqonayseen. maanta waxaa fiican marka qof walbo halkan fadhiyo oo dhalinyaro ah, midda ugu horeysa waa inuu ka shaqeeyo amniga magaalada, inuuna ku kaalmeenin qof kale inuu amni darro soo geliyo magaaladan, inuu ka qabto qof walbo dulmi ku wada magaaladan, inuu ka qabto qof walbo musuq maasuq ku wada magaaladan, inuu ka qabto qof walbo magaaladan isku day inuu hoos u dhigo. inaad dareentaan magaaladan inay tahay magaaladiini, dhiiggiini inuu dhulkan ku duugan yahay. xuduntiini waxaa la yidhahdaa Soomaalida inay dhulkan ku duugan tahay. waxaa la yidhahdaa meesha xudunteeda ku duugan tahay waa meesha adduunka ugu jeclaaya la yidhahdaa.
marka dhulkan waa dhulkiini awowyaashiini dadkiini waad ku nooshihiin waad jeceshihiin haddii adinka aadan badbaadsanin qof idin badbaadinayo mala mar labaad dhalinyaro ma ahan keliya inaad kubad ciyaartaan ma ahan keliya ma aragtay inaad masraxyada istaagtaan oo haystaan ma ahan keliya inaad ma aragtay banaanaha fariisataan waa inaad keentaan maskax ma aragtay wax lagu bedelo maskax furan oo yacni bedel dhaqsi ah lagu keeno dadka qurbaha waxay diyaar idin leeyihiin inay idin garab istaagaan laakiin haddii magaaladii dhallinyaradeedii iyo odayaasheedii iyo dadkeedii iyo haweenkeedii isku mid yihiin isqabqabsigana uu dhammaan waayo annaga sida maraykanka ama yurub laga aaminsan yahay unbaa laydinka aaminsanaanaya magaaladan waxaa laga aaminsan yahay sidaan horena u sheegay magaalo ay bahlo ku jiraan magaalo ma aragtay nabad la'aana magaalo aan ma aragtay xataa UNT United Nationkii iyo hay-adihii NGO-ga xataa ay imaan karin maxaa yeelay adinka waxaa leedihin shaqo la'aanaana hayso dhibaana haysto wax noo maqan malaha yaa idiin soo geli karo maanta aa soo dhawaynayseen magaaladan waa magaalo qadiimi ah saa ogtiin taariikh leh magaalooyinka badanaa soomaaliyana ka waaweyn ayada iyo markaa la sheegaa inay isku dhadhow yihiin ama isku da' yihiin laakiin aaway dadkii markaa ogaan lahaa taariikhdaas aaway dadkii dib u soo celin lahaa taariikhdaas aaway magaaladan quruxda badan oo xeebtaas markaad fiirisid guryo dhaadheer oo dabaqay ka dhisi lahaa aaway dadkaas magaaladan waxaan rabnaa insha allahu tacaala aniga fikirkayga waaye waana jeclahay inaan arko insha allah anigoo nool adinkoo dhanna waxaan rabaa fikirkaas in ay la qaadataan magaaladan waxaan rabaa inay noqoto jasiirad qurux badan oo laga soo doonto wax walbo bini aadamka u baahdo wax walbo uu bini aadamka u baahdo sida waxbarashada caafimaadka in laga helo dhaqaatiir wanaagsan waxbarasho iyo security amni iyo meel la dego iyo ugu dambeyntii meel laga shaqaysto inay noqoto waxaasoo dhan waa wax aad samayn kartiin waa wax dhallinyarada u horseedi karto anigana intaasaa idinku bogaadinayaa marnaba hadalka inaan ku dheeraado waxaan ku wareejinayaa walaalaha kale iyo ag fadhiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan salaamayaa guddoomiyaha jaaliyadda reer Baraawe ee dibadda iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada ku-xigeenka iyo guddoomiyaha ururka haweenka iyo marti sharafta iyo dhalinyarta inteeda kale waxaan leeyahay dhammaantiin horta waa mahadsantihiin kulankan allah nooga dhigo kulan qaar meel walba oo meel lagu kulmo waxaa lagu dahaystaa kulankaas inuu noqdo kulan qaar ah walaalkeena barnaamijyo badan ama taariikh ayuu nooga sheekay waa xaqiiqa laakiin maanta dhabta jirto taas waa ka duwanaa anaga waqti ayaan meel jirnay meel ayaan ku sugnay taariikh aada u saraysan waa lahaan jirnay laakiin maanta xilligan la joogo waxaan nahay Soomaali markii loo fiiriyo dadka ugu dambeeyaan nahay taasina waxaa keentay maskaxdii wax shiili lahayd oo wax soo saari lahayd ma laga shaqaysanin qofka bini aadamka culimadu waxay yiraahdaan wuxuu ka kooban yahay 3 qayb waa jirka maskaxda iyo wadnaha midba qaab ayuu ku koraa jirka bini aadamka wuxuu ku koraa qofka inuu raashin fiican helo maskaxdana waxay ku kortaa qofka inuu wax aqriyo wadnahana Allah xusidiisa ay ku weynaataa oo qofka waasic ku noqda markii la rabo wax wanaag in la sameeyo diinteena waxay na amartaa innamal mu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta oo iimaanka oo muslimada sheeganaya waa dad walaalo fa aslihuu bayna aqawaykum wanaagu wuxuu iimaana markii walaaltinimada la wanaajiyo walaaltinimada haddii la wanaajin waayay qofba qaab kale hadduu u fikiro qabiil ahaan u fikiro wax adiga kordhinaysa male qabiilka ilaahay quraanku uu sheegay maxaa loo sameeyay litacaarafu in la isku garto hebel walaalaan bas rasuulka calayhi salaatu wasalaam asigoo ka duulayo walaaltinimada iyo qabiilka markuu madiino u guuray waxaa ka dhintay walaalkiisa oo hal naas isla nuugeen qofka marka hal naas isla nuugtiin gabar haday tahay walaashaada way ma guursan kartid wixii ayada markaas la dhasheena waxa waa kugu dhowi walaaltinimay kugu dhowina aqo min ar-ridaa alira
markuu cusmaan bin madcuun la yiraahdo markuu dhintay rasuulku wuxuu dhahay oo la duugay waa qabriga ugu horeeyay rasuulka ehelkiisa oo la duugay magaalada Madiina wax walbana markaas ayaa wax qabsan karnaa waxaan leeyahay walaalkayga soo dhawaaw waxaad noo keentaana waxaan isku dayeynaa waagi hore waxba isku dayi weynee inaan wax qabsano laakiin hadda waxaad noo keentaan waa isku dayeynaa inaan meel fiican gaarsiino wax fiicanna inaan ka dhigno waana ku mahadsantahay booqashada aad nagu imaad degmada Baraawe gudoomiyaha jaaliyadaha Mareykanka Baraawe madaxa hay'adda UWAYS ururka dhalinyarada ururka haweenka marti sharafka aqoon-yahanada dhammaan qof walbo mansabku ku fadhiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo fadhi ay iskugu yimaadeen ururka haweenka iyo ururka dhalinyarada si wada jir ah iyo uu noo qabanqaabiyey gudoomiyaha jaaliyadaha Cumar Maxamed Xasan oo wax fiican noo wado maanta aan dhihi karno hadduu Ilaahay yiraahdo oo mudan inaan ka faa'iideysano waxaana waad ka haysataa anagana kulley ka dhalinyar ahaan waxaan diyaar u nahay message-keen inaan si cad aan usoo gudbisano hadduu Ilaahay yiraahdo wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya gaar ahaan degmada Baraawe مسؤولك أوصل هي هيئة UWAYS ururka dhalinyarada gudoomiyaha ururka dhalinyarada ku hoggaankiisa ururka haweenka ururka dhalinyarada mar sharafta ka soo qayb gashay sidoo kale saxaafadda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wadu salaam waxaan leeyahay alxamdulilah shukru rabbil caalamiin ilaaha maxad iskale oo noo suurtageliyay inaad danahayn aan iska wareysano halkaan caafimaad aan ku imaanay caafimaad aan ku joogno alxamdulilah ilaaha maxad iskale bacdul salaam waxaan leenahay mudane gudoomiye soo dhawow degmada Baraawe waa degmada aniga hadda aan joogno insha Allah waa deegaankaagi dadku waa dadkaagi deegaankana waa sidoo kale waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow insha Allah hadaan nahay ururka haweenka degmada ku nool waa aadan ugu faraxnay marka la yiraahdo gudoomiye jaaliyada yimid oo baahada degmada uu rabaa deegaanka inuu wax ka ogaado waxaan leenahay waa arrin aad loogu farxay waaye waa gacmo furan kugu soo dhaweynayna insha Allah qalbi furan neey furan insha Allah wada shaqeen inaan yeelano diyaar aan u nahay baahada degmada inaan ku soo gudbino aad naga gaarsiisana diyaar aan u nahay gudoomiye insha Allah hada hore aan u gudagalo baahiyaha ka jir degmadan wax la soo koobi kara ma ahan waxa jira hay'ado iska yimaado hogta naga aruuriyo oo sun dib noogu soo laabanan marka inaan anaga isku tashano danta wadan weyn aan nooga jirto waxay tahay inaan isku tashano jaaliyadeeni dhalinyarada gudaha joogaan haweenkeeni inaan isku tashano danta muhiimka ah deegaanka waa intaas oo kaliya marka hadaa wax qabsataa wax lagu dari kara hadaa wax qabsanad cid ku iimaanaysa ma jiraan marka waxaan leenahay insha Allah taala waxaan diyaar u nahay hiili hoob inaan u istaagno degmadan si ay u hormarin lahayn helagan waxaan sugaynay ima dad noo imaada waxba la sameeyaa wiil shaqo abuur loo sameeyaa marka shaakada waxa ogaan in shaqo abuur aniga aan sameeysan karno marka aan sameeysana ay noo imaanay wax nooga dari doono waxaan leenahay dhalinyarada deegaanka waxaan leenahay inay isla qaantaan xaafad aad isku xilqaantaan sidoo kale ururka haweenka sidoo kale waxay diyaar u yihiin ayagana xaafad walba inay ka kaalantooda ay ka qaataan waxaan leenahay inaan naga gudbisid oo naga gaarsiisid jaaliyadda Soomaaliyeed ee degmada Baraawe ka soo jeeda inaan loo baahan yahay inay ayaga shalay ayaga hoogo ay naga dabciyeen maadaama dawlad wadan dawlad ka jirto oo hoog badan oo kala dambeyn iyo wada shaqeyn iyo shaqo abuur laga helayo ay yihiin oo maskaxdooda caafimaad qabto wax barteen waxaan rabaa inay dad noo soo diraan si dhalinyarada loo baraarujiyo guddi u sameeyaan si ay isku soo xirnaan kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jira marka waxaan u baahanahay insha Allah aqoontan adinka xaq ku haysaan waxaan rabaa inay noo keentaan anaga si deegaan wadankaas looga dhaqmayo oo kale ina anaga isku xilqaano maskaxa waxaan diyaar u nahay anaga hiili hoob waan u daaganay ina deegaankan hormar diyaar u nahay laakiin waxaan naga dhaman geed waxa la yiraahdaa haayeen la ma qormo haayeen un baan u baahanahay insha Allah baraarujin badan loo baahan yahay gudoomiye waad mahadsan tahay mar labaad mar saddexaad
waxaan ku leenahay degmad baahiyada aad u badan tahay waxaa kaliya hadda hal elbasaan leenahay oo ay tahay mas-uulka halkaa fadhiya oo new west oo mas-uul ka yahay mudane shaarkey degmadan inta yaroo dhaqaaqaysa aad u jeedid waa mid asiga gacanta ku hayo weeye waxaan leenahay shaarkey aad u mahadsan tahay adigana insha allahu tacaala waad kaaga mahadcelinaa sidaa dhiiran dhib iyo dheef wax badan eed waa martay isjijiid waa martay waa lagu dulmi badan lagugu sameeyey waa ku sabartay waxaan leenahay ilaahay kaaga abaalmarin waxaan leenahay new west hal fariin aan rabaa in aan u dirsano maadaama fursadda aan ka faa'iidaysanayo ururka haweenka ururka dhalinyarada deegaankan degmadan joogaan